degmada Dowlado oo ah mid u dhaxaysa labada webi ee Daawo iyo Ganaale ayaa waxay sameeyeen fatahaadiyo kuwaasi oo sababay in ay ku barakacaan dad kor u dhaafaya 5773 qoys halka ay si toos ah u saameeyeen 17755 qoys oo degan 19 tuulo hoos yimaada degmadaasi. maamulka degmada Dowlado iyo hay'adaha samafalka oo ka duuliyay saameynta fatahaadiyadani iyo dhibaatada haysato shacabka soo barakacay ayaa kulan yeeshay kaas oo loogu wada hadlayay sidii gargaar si degdeg ah looga gaarsiin lahaa shacabka ay fatahaadiyada saameeyeen. waxa ayna maamulka degmadu gargaar gaarsiiyeen 750 qoys oo kamid ah shacabka ay fatahaadiyada soo barakaciyeen waxayna wajiga koowaad la gaarsiiyay deeq raashin ah. deeqdaasi oo ah mid isugu jirta raashinka noocyadiisa kala duwan sida bariiska, sokorta iyo saliidda. waxaan ugu horeyn halkaasi warbixino kala duwan nagu siiyay qaar kamid ah shacabka ay fatahaadiyada soo barakaciyeen. dadkii biyaha ay soo saameeyeen ma kamid ahaa maamulkii baa noo soo gurmaday waxa weeyaan waxaan la keenay hooyo aan degno raashin wixii heli kareen bay noo keeneen laakiin baahidu inta ka badan tahay waxa wax maamul ka fikir maaha ilaa dawladda ilaa wixii gacan ka geysan kara waxaan u baahanahay inay gacan ka qaataan ma fahamtay gurmadkan loo fidinay dadka soo barakacay biyaha ay dhibaateeyeen guriyii qaar baa dumay marka waxa weeye bahal cilina waa ka bixinaynaa raashinkaas aan soo gaaray deeqda ah boqolkiiba boqol ma ka gaartay dadkii noo keenay marka waxa leeyahay mahad cilinta aan ka socda qabalaha labaad mahad cilinta ugu weyn waa nooca maamulka hay'adaha iyo caalamka beesha caalamka iyo hay'adaha United Nations iyo NGO-ladana waxaan ka codsanaynaa in dadka wax la soo gaaraan oo ay nagu soo wareejiyaan maamulka iyaga aad iyo aad u hafaanaya ma fahamtay daacadda ah qabalaha degmada Dowlado waligeed lama arkin intaanu biyo baxa iyo dhibaato lama arkin inta aan soo marnay deerbi badan deerta la dhaado adduunka ugu biyo badnaan xataa waxaan arkin meel ay nolosheeda soo gaarin hadda way soo gaaraan shacabka ilaahay baa u sacbahoori laakiin dawladooda insha Allah in badan garab istaagtay dawladda garab istaagtay ilaahay ma hadle ooraa loo keen qabaal la Kenya tunkooda ku soo daldaleena shacabkii dawladooda hadayna ahayn dad badan haaligsan ilaahay biyaha raaci lahay dawladii iyo macnaha iyo xukuumadda baa u soo gurmatay waa la soo bixiyay dadka ilaa haddana waa la bixinayaa de shacab saas kuma dhamaanayeen 6,000 oo qoys saas kuma dhamaanay saasna laguma soo daldalay kara ilaa hadda way ku jiraan ilaa haddana waa la gurmanayaa macal dhalinyarada iyo xukuumadda wax u kala heray mala degmada Dowlado in badan ay dadaaleen haddana biyihii saaki 4 saac meesha ay joogaan iyo hadda meesha ay joogaan isku mid ma aha hadda baqaaradii waaweynada ganacsiga oo degmada Dowlado xoog doolar iyo hadda ku soo jiraan inay ku soo gudu jiraan ay ku soo socdaan hadda saacadan hadda taaganaan alxamdulillah ma hadlay xukuumadda iyo degmada Dowlado aan helnay hadda maanta waana kan raashin gargaar aan la siinayaa waa kan gargaarkii aan qaadanay waa kan gaarashay deelo khayr Allah siiyo anaga maanta ninkii 5 kiilo na siiyo Allah kadib waan ugu mahad celinaynaa xukuumaddan u mahad celinaynaa degmada Dowlado maamulkeedan u mahad celinaynaa tan labaad naguma filnade wax kasto oo la siiyo horta naguma filna hase haatee waxaan rabnaa in nala garab qabto in nala soo gaaro waa taariikhan wiligeed la marin in nala soo gaaraan rabnaa oo biyo baxay soo qaxisay intaan waxaan noo keenay degmada Dowlado waxaan ka codsanaynaa intaan ka badan inay soo gaarsiiyaan hay'adaha gargaarka haddana intaan maamulka ayaa noo keenay insha Allah biidhnaahi kariim. Geestiisa gudoomiyaha degmada Dowlado ayaa sheegay in deeqdani ay tahay midii koowaad ee soo gaarsiiyaan shacabka sidoo kalena maalmahan inagu soo food leh ay rajeynayaan in dhammaan qoysaska la gaarsiiyo raashin iyo gargaar kala duwan. maanta waxaan ku sugannahay goobta dadka ka soo barakacay fatahaadda degmada maalmahan saameyntu weyn ku haysa fatahaadda soo runtii saameysay dad aad u tiro badan wajiga koowaad hadda waxa lagu qiyaas karaa dadka aan diiwaan gelin ilaa 5173 qof baa hadda ka soo barakacday waxa meelaha kala dijinay waa goobaha iskuulada ah sidaad u jeedaan hadda waxaan tax taaganahay iskuulka Ugaasumo ayaan dhex taaganahay taasoo shacabku ugu faraha badan hadda ay joogaan taa anagoo ka duulin dhibaatada ku dhacday bulshada ayaa maamul degmahan waxaan qorshe qaadanay in aan bilowno si gargaar degdeg ah u helayaan bulshada halkan ku sugan taasoo maanta degmahan anagoo isticmaalin miisaaniyadda degmada aan maanta ilaa 750 qoys raashinka noocyadiisa kala gedisan sida saliidda sokorta iyo bariiska in aan gaarsiino qoysaska hadda maanta halkan ku sugan sidaad aragtaan dhammaan qoysaska waa la gaarsiinayaa raashinka loogu talagalay taasoo marka ah raashinkan mid koowaad ah laakiin aysan ahayn waa barbilow oo kaliya laakiin uusan ahayn kan ugu dambeeyay taa marka bulshada qaybaheeda kala duwan waxaan isleenahay in maalmahan soo socda ay wax ka tari doonto baahida maadaama raashimadooda ay ka raaceen biyaha
ayaa marka maamul degmahan annagoo eegayna miisaaniyaddan dib ugu laabanay inaan ka jarno 750 qoys raashin ku filan taasoo marka runtii raashin aad ugu filan maalmahan ay karsan doonaan ama inta laga soo gaaray aan ka heli doona xukuumadda jawaab degdeg ah waxaan rajayn doonaa insha Allah xukuumadda sida hadda u bilaani ka wanaagsan inaan ka heli doono gargaar degdeg ah ayaan rajayn doonaa taasi marka annaga hordhac baan u sii sameynay maamulka degmada qorshaha isla qaadanay qorshaha marka runtii waxaan leeyahay cid kasta oo karta inay ka qayb qaadato bulshadan inay caawiso waan soo dhaweynaynaa annagoo marka ka duuli doono haddii ay noqoto hay'adaha haddii ay noqoto ganacsatada kala duwan ee magaalada ayadna way noo dhiman tahay saaka waxaan la shirnay hay'adihii kala gudisnaa degmada ku sugan taasoo insha Allah rajo weyn aan ka leenahay inay waxyaabo badan nagu soo caawin doonaan ayaan qorshahan u qaadanay si guud marka sidoo kale xukuumadda deegaankana waxaan ka rajayn doonaa insha Allah gargaarkan ka ballaaran inaan heli doono waan insha Allah waan rajayn doonaa muddo kooban in nagu soo gaardo maalmahan gudahoodna waan rajayn doonaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin